بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله والسلام يا علي ودمان انت dhegeysanaysaa shirka iyagu ku saabsanaa maanta aan ku qabanay magaalada Muqdisho barnaamijka horusocod oo ah khudbad ay ku mideysan yihiin xildhibaano Soomaaliyeed taasoo qorshahoodu yahay in ay yagleelaan ama ay bilaabaan nidaamkii 4.0 looga bixilaa marka waxaa jira warar badan oo la isku dhaxyaacayo iyo maxaan ku yiraahdaa wax badan oo saxaafadu qoraysay marka inaan cadeyno mowqifka iyo ujeedada rasmiga ah madasha horusocod loo aasaasay ama loo waa maxay ujeedka saxda ah marka ujeedka saxdii waxa weeye horusocod sida dadkayba dastuurkeenu waxa uu sheegayaa in 2 sano gudahood xildhibaan kasta uu ku biiro xisbi xildhibaankii ku biiri waayna weliba uu luginayo xildhibaannimada taa marka waxaan si looga gudbo ayaanu diyaarinay qorshe lagu dhisayo xisbiga ka horna inta shuruucda la diyaarinayo inaanu khudbad dadku ay isku urursadaan intii isku xisbi noqon kartaba ay isku raacdo marka qorshaha horusocod waxa weeye in ay diyaariyaan nidaam ay ku gaarayaan inay noqdaan xisbi siyaasadeed si dalku uga baxo 4.5 cabdishiid Soomaalidu waxay tiraahdaa xalaal dalaal baa lagu taa waxa wararka la isla dhexmaraya keenay waa halka aad ku shirteen oo ahayd Nairobi maxaa idin diiday adinkoo xamar Baydhabo Kismaayo Jowhar Garowe meel walba ku shiri karo inaad Nairobi aadaan taamacu xaqiiqada qofka haduu joogeen qalad buu gali karaa anaga Nairobi wax ku shiray ma jiro xildhibaano fasaxa oo qaarba ay galka yimaadeen anigu transit baan ahaa waxaan ka imid Europe laba habeen qura Nairobi joogay xildhibaano kalena way sii socdeen qaar kalena waa soo socdeen waa la iswareystay shaahada la wada cabay mooyaane wax shiro ka dhacay ma jiro kaliya aragtiduna qoray u socotay shirka rasmiga kullada horusocod maanta xamar ka dhacay ayaa ugu horeeyay oo aan kaga dhawaaqay laakiin iswaraysi waa jiray 3-4 xildhibaan oo isu timid waxa la buubuuninay iyo buuqa badan iyo Nairobi baa shirka ka dhaceen iyo shirar baa lagu qabtayna wax jira ma aha laakiin isaragiya waa jiraan shirka dhacay Nairobi ma jiro gaar oo lagu dhisay badan xildhibaanada hadda sida aad sheegtay kurdadiina ku jira horusocod tira ahaan intii tiradu bilow weeye bilowgana runtii markii la yiraahdo 100 iminka waa ka badan yihiin saacad walba iyo maalin walbana cid baa kusoo darsamaysa marka tirada rasmiga ah ma fadhido guddi gaar oo diiwaangelinaya jira guddi gaar oo xeerkii xisbiga qoraya jira qorshahanuna waxa weeye 2 bilood ee fasaxa lagu jiro inaan barnaamijkaasi ururino hadii la yiraahdo marka fasaxa baarlamaanka laga soo noqdana si rasmi ah loo dhiso xisbigii qorshihiisa cabdishiid markii xisbi la dhisayo xisbiyadu kulay mabaadii ayay ku salaysan maxaa idin asala oo aad wadaagtaan si aad xisbi u dhisataan xeerkii iyo nidaamkii iyo qorshihii hadda ayaa la qorayaa laakiin ujeedadu waxa weeye in nidaamka 4.5 laga baxo laakiin detailska xisbiga iyo sida uu shaqayn doono iyo shuruucdu yeelanayo tiin gaar oo aqoon-yahano oo xeer yaqaana ayaa ku mashquulsan hadda gacanta faya oo 9 qof ugu dambeyntii ma laga yaabaa kurdadan hadda isu tagtay xildhibaanada iyo dadka kale ee ku biirayaba inay isugu biyashubtaan wararka la isla dhexmaraya inaad mooshin ka keentaan ra'iisul wasaaraha kama horta waxaan rabaa inaan kuu sheego waxa iman doona maartay iman doona ama mustaqbalka idina kaba hadli karto dabcan xildhibaanadu waxay xildhibaano u yihiin waa wakiiladii shacabka waxay dalka iyo hawshiisa iyo sidoo u socotay inay ilaaliyaan waa laga maarmaan laakiin anaga hadda qorshanaga kuma jirto inaan ra'iisul wasaare ama madaxweyne ama cid kale gudoomiye baarlamaan ama cid kale aan mooshin ka keeno balse waxaan rabnaa inaan gacan ku siino wixii wanaagsan oo ay qabanayaan ka qabano wixii khaldan oo ay galahayaan wixii xadgudub la samaynayo meelaha ay ka gaabiyaan aanu tilmaano meelaha waa ka gaabisan inaan ayaga gacan siino bilcagsi intii la dheeraad muushiday wadaan dhinaca kale inaanu gacan siinaan diyaar u nahay mana aha qorshaha anagana kuma jirto si cadna inaan u sheegaan rabaa anaga qorshahayaga hadda qorshaha anaga dhow iyo maxaan ku yiraahdaa hawsha aanu hadda ku jirno mooshinna kuma salaysna waan ognahay dawladdu inay tahay dawlad cusub maxaan ku yiraahdaa 3 bilood 4 bilood jirta waqtigii lala xisaabtami lahaa iyo xilligeedii ayna weli gaarin marka ma yihiin dadaan mas-uuliyiin ahayna dad mas-uuliyiin aan nahay waana ka xumahay dadka sidaa u fasirayay iyagana waxaan runtii usoo jeedin lahaa inay shaqada ku mashquulaan ayna ku mashquulin madasha horusocod waa awood waa xoog waa system dhisan oo dhismaya gacanna siinaya dawladda kuna gacan siinaya shacabka ay wakiilka ka yihiin inay ku ilaaliyaan xuquuqdooda iyo maxaan ku yiraahdaa sidii ay horey ugu socon lahaayeen dhinaca kalena waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo
adduunka check and balance waa jira meel kasta dawlad kasta wadankaada igala soo hadlaysa iyo meel walba check and balance inuu jirana waa lagama maarmaan wadankay u fiican tahay dadkay u baahan tahay hal system iyo hal nidaam oo keliya dal inuu hogaamiyo sidiisaba uma fiicno waa in check and balance uu jira oo isla xisaabtan jira sida kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba waxay ku dhawaaqeen waxaan nahay dawlad la xisaabtan ah oo in lala xisaabtamo maaragtay diyaar u ah yaa la xisaabtamaya mayagaa isla xisaabtamaya wasiirka maaliyadda isagaa isla xisaabtamaya ra-isul wasaaruhu isagaa isla xisaabtamaya waa in la helaa cid kale oo la xisaabtanta marka xisbiyadu siday u dhisan yihiin xisaabtanku wuu iman doonaa laakiin hadda qorshaheena kuma jiro shirka iyagu wuxuu ku saabsanaa maanta aan ku qabanay magaalada muqdisho barnaamijka horusocod oo ah kudlad ay ku midaysan yihiin xildhibaano soomaaliyeed taas oo qorshahoodu yahay in ay yegleelaan ama ay bilaabaan nidaamkii 4.12 looga bixi lahaa marka waxaa jira warar badan oo laisku dhexyaacayo iyo maxaan ku idhaahdaa wax badan oo saxaafaddu qoraysay marka inaan caddayno mawqifka iyo ujeedada rasmiga ah nolosha horusocod loo aasaasay ama loo waa maxay ujeedka saxda ah marka ujeedka saxdii waxa weeye horusocod sidaad ogtahayba dastuurkeenu waxa uu sheegayaa in 2 sano gudahood xildhibaan kasta uu ku biiro xisbi xildhibaankii ku biiri waayana weliba uu luminayo xildhibaannimada taa marka waxaan si looga gudbo ayaanu diyaarinay qorshe lagu dhisayo xisbiga ka horna inta shuruucda la diyaarinayo inaanu kudlad dadku ay isku urursadaan intii isku xisbi noqon kartaba ay isku raacdo marka qorshaha horusocod waxa weeye in ay diyaariyaan nidaam ay ku gaarayaan inay noqdaan xisbi siyaasadeed si dalku uga baxo 4.5 cabdishiid soomaalidu waxay tidahdaa xalaal dhalaal baa la quutaa waxa wararka la isla dhex maraya keenay waa halka aad ku shirteen oo ahayd Nairobi maxaa idin diiday adinkoo xamar baydhabo kismaayo jowhar garowe meel walba ku shiri karo inaad Nairobi aadaan jaamacu xaqiiqda qofka hadduu joogeen khalad buu geli karaa anaga Nairobi wax ku shiray ma jiro xildhibaano fasaxa oo qaarba ay meel ka yimaadeen anigu transit baan ahaa waxaan ka imid Yurub 2 habeen qura Nairobi joogay xildhibaano kalena way sii socdeen qaar kalena waa soo socdeen waa la iswaraystay shaahbaa la wada cabay mooyaane wax shiro ka dhacay ma jiro keliya aragtiduna horay u socotay shirka rasmiga kudlada horusocod kii maanta xamar ka dhacay ayaa ugu horreeyey oo aan kaga dhawaaqnay laakiin iswaraysi waa jiray 3-4 xildhibaan oo isu timid waxa la buubuuninaya iyo buuqa badan iyo Nairobi baa shirka ka dhaceen iyo shirar baa lagu qabtayna wax jira ma aha laakiin isaragya waa jiraan shirka dhacay Nairobina ma jiro gaar oo lagu dhisay badan xildhibaanada hadda sida aad sheegtay kurdadiina ku jira horusocod tira ahaan intee dhantiin tiradu de bilow weeye bilowgana runtii markii la yidhahdo 100 iminka waa ka badan yihiin saacad walba iyo maalin walbana cid baa kusoo darsamaysa marka tirada rasmiga dee ma fadhido guddi gaar oo diiwaangelinayaa jira guddi gaar oo xeerkii xisbiga qorayaa jira qorshahanaguna waxa weeye 2 bilood ee fasaxa lagu jiro inaan barnaamijkaasi ururino hadii la yidhahdo marka fasaxa baarlamaanka laga soo noqdana si rasmiga loo dhiso xisbigii qorshihiisa cabdishiid markii xisbi la dhisayo xisbiyadu kolley mabaadii ayay ku salaysan yihiin maxaa idin asal ah oo aad wadaagtaan si aad xisbi u dhisataan xeerkii iyo nidaamkii iyo qorshihii hadda ayaa la qorayaa laakiin ujeedadu waxa weeye in nidaamka 4.5 laga baxo laakiin detailska xisbiga iyo sida uu shaqayn doono iyo shuruucdu yeelanayo tiim gaar oo aqoon-yahano oo xeer yaqaana ayaa ku mashquulsan hadda gacanta faya oo 9 qof ah ugu dambeyntii ma laga yaabaa kurdadan hadda isku tagtay ee xildhibaanada iyo dadka kale ee ku biirayaba inay isugu biyashubtaan wararka la isla dhex maraya inaad mooshin ka keentaan ra-iisul wasaaraha horta waxaan rabaa inaan kuu sheego dee waxa iman doona maaragtay imaan doona ama mustaqbalka idina kaba hadli karto dabcan xildhibaanadu waxay xildhibaano u yihiin waa wakiiladii shacabka waxay dalka iyo hawshiisa iyo siday u socotay inay ilaaliyaanna waa lagama maarmaan laakiin annaga hadda qorshanaga kuma jirto inaan ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama cid kale gudoomiye baarlamaan ama cid kale aan mooshin ka keenno balse waxaan rabnaa inaan gacan ku siino wixii wanaagsan oo ay qabanayaan ka qabanno wixii khaldan oo ay gelahayaan wixii xadgudub ee la samaynayo meelaha ay ka gaabiyaan aanu tilmaano nahno meelaha waa ka gaabisan inaan ayaga gacan siino bilcagsi intii la dhihi lahaa mooshin bay wadaan dhinaca kale inaanu gacan siinaanu diyaar u nahay mana aha qorshe annagana kuma jirto si cadna inaan u sheegaan rabaa annaga qorshahayaga hadda qorshe annaga dhow
iyo maxaan ku yidhahdaa hawsha aanu hadda ku jirno mooshinna kuma salaysna waan ognahay dawladdu inay tahay dawlad cusub maxaan ku yidhahda 3 bilood 4 bilood jirta waktigii lala xisaabtami lahaa iyo xilligeedii ayna weli gaarin marka ma yihiin dadaan mas-uuliyiin ahayna dad mas-uuliyiin aan nahay waana ka xumahay dadka sidaa u fasirayay iyagana waxaan runtii usoo jeedin lahaa inay shaqada ku mashquulaan ayna ku mashquulin madasha horusocod waa awood waa xoog waa system dhisan oo dhismaya gacanna siinaya dawladda kuna gacan siinaya shacabka ay wakiilka ka yihiin inay ku ilaaliyaan xuquuqdooda iyo maxaan ku yidhaahdaa sidii ay horey ugu socon lahaayeen dhinaca kalena waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo adduunka check and balance waa jira meel kasta dawlad kasta wadankaad igala soo hadlaysa iyo meel walba check and balance inuu jirana waa lagama maarmaan wadankay u fiican tahay dadkay u baahan tahay hal system iyo hal nidaam oo keliya dal inuu hogaamiyo sidiisaba uma fiicno waa in check and balance uu jira oo isla xisaabta uu jira sida kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba waxay ku dhawaaqeen waxaan nahay dawlad la xisaabtan ah oo in lala xisaabtamo maaragtay diyaar u ah yaa la xisaabtamaya mayagaa isla xisaabtamaya wasiirka maaliyadda isagaa isla xisaabtamaya ra-isul wasaaruhu isagaa isla xisaabtamaya waa in la helaa cid kale oo la xisaabtamta marka xisbiyadu siday u dhisan yihiin xisaabtanku wuu iman doonaa laakiin hadda qorshaheena